Ramadaan mubaarak asxaabay waxaan baranaa idioms ama sarbeebo dadka luqada u dhashay aad ayay u isticmaalaan sarbeebaha markaasee dadka fahantid ama u dhex gashid waa kuu muhiim inaad baratid idioms asxaabay idiomska ama sarbeebuhu waa muhiim waayo dadka luqada u dhashay all the time way isticmaalaan markaasee aad u fahantid aanay wixii kugu noqon wax kadisa you have to learn waa inaad barata okay waxaa ugu horeysa hit the book waxa weeye markaad caadi u macnaysid ama midmid u gelisid translationka maxana kalaa soo baxaysa markaasaasay sarbeeb ku noqonaysaa hit waxa weye waa dhufasho the bookna waa buga markaa buga meel ku dhufo kale noqonaysa okay laakiin markay sarbeeb tahay hit the book waxa weye to study hard yacni inaad si adag wax u baratid tusaale ahaan teachers always remind their students to hit the book macalimiintu waxay badanaa xasuusiyaan ardaydooda inay yacni xoog wax u diraasiyaan xiliyada imtixaanka kale balaan isleeyahay I'll go hit the books. You're going to hit the books and pass it. talabaad waxa weeye asxaabay in hot water caadi markaad maxnaysid ama translation kalgelisid waxay noqonaysaa biyo kulul laakiin idiom ahaan ama sarbeeb ahaan waxa weeyaan ina trouble qof in yani ama in qof dhibaato ku sii waajantay ama khatar uu la kulmi doono in trouble macnaheedu waxa weeye waa khatar ama waa dhibaato tusaale ahaan that your drum broke again the living room window I am sure they are in hot water يعني caruurtii mar labaad waxay jebiyeen qolkii fadhiga marayay daaqadiisii okay waan hubaa inaa khatar igala kulmi doonaan ama inay khatar waajihi doonaan tusaalahan kalena aan is eegno kani weeradeed yahay insha allah English kalena waad ka faa'iidaysaan idiomkii ama sarbeebtiina way ku jirtaa Everyone, 1 minute left to finish your tests. Okay, time's up. Luca, I have your exam marks here. Can you explain to me how you and Danny have exactly the same answers on the test? Teacher, I don't know. Maybe she was looking at my test? Danny has the highest grades in the class. She can read my mind? I don't think so. So I don't know what happened. Okay, I've talked to Danny already, and you both will take another test tomorrow. Whoever is lying is in hot water. Uh-oh.